السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي وسلامتين ميل والبودين الدافيد آكا جوكتان ومركلي يولالكينا حنفي حاجي محمود وإذن كلا هدلايا دناني ميديا هدي أدكو عصبتاي channel كيغا دناني ميديا نبكسي سسكرابكا شيركا هلا دافين نعكسي ليغا دنبالك خورالك كومنتيكي إيقو داف ديريجلين بي إيتهاي وانسو دمين دونا dhamaan waa mahadsantihiin waa mar kale iyo video kale maxaa inoo haya oo maxaa inoo wada oo maxaad iga sugaysaan oo maxaad iga filanaysaan channelkayga kuma qotona oo kaliya in uu dadka jafo iyo inuu dad aflagaadeeyo intaas uma sameysna wax walbo aan isleenahay ummadda faa'iido ay u tahay aan rabnaa inaan ka hadalno jaceylan ka hadleynaa naceeban ka hadleynaa xaasidan ka hadleynaa maseerooyan ka hadleynaa maseeroowan ka hadleynaa war adiga hool badanan ka hadleynaa heesan fisireynaa unug naftirkaayna aab heeseyno wax aan dhaafeyno malaha dhinac kastaan ka hadleynaa maanta waxaan rabaa hadduu ilaahay karaal noqday in aan soo gudbiyo macnaha arin baryahanba ka jirta dunida kusoo korodhay in aan xoogo wixii ra'yigayga aan ka dhiibto ama aan ka hadlo taasoo ah Griiga iyo Turkiga baryahan xasrada taagan dhanka qaxootiga kusoo qulqulay sida ogtiin bishii la soo dhaafay 19-keeda ama 22-keeda sida ogtiin madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan dalkaasi Turkiga wuxuu ilbaabada u furay qaxootiga si ay ugu qulqulaan dalkaasi Griiga ama Yunan si ay u soo gaaraan Europa hadday naqlinay Jarmalka iyo Austria iyo meelahaas nin walba meesha uu haminay inuu soo gaaro ilbaabka ayuu ka qaaday daha ayuu ka qaaday wuxuu yiri gala halagu aruura halagu shabamo sababta ka dambeysay maxay tahay maxaa keenay midowga Yurub iyo Rajab Tayyip Erdogan ama dalkaasi Turkiga waxa ka dhaxeeyay heshiisyo lagu reebay qaxootiga intaas oo bilyan ama lacag inuu ku qaato oo meeshooda ku celiyo oo ku dhaqaaleeyo sida Griigaba marka hore sharci ma bixin jirin laakiin hadda 2015 wixii ka dambeeyay Europa waxay go'aan gaartay Griigi in la siiyo dhaqaalo ayaga ay sharci siiyaan dadka qaxootiga soo galootiga si ay ugu soo gudbin Europe sida Jarmalka Austria iyo Denmark iyo Norway iyo wixii limid ay meeshooda joogaan marka heshiisyadii la galay Griiga way socdaan oo wax iska bedelay ma jiro laakiin midka Turkiga la galay way isbedeleen qorshihii ayaa loogu baxay duqa asagana waa xanaaqi ilbaabkaas furay marka videogan ila daawada wuxuu ku baxayaa afka Carabiga ah waxaana ka hadlayo saxufi ama journalist Carabi ah laakiin TV-ga dalkan ayaa laga leeyahay Jarmalka waa TV weyn ah marka wariye kamid TV-ga ayaa dalka tagay Griiga xuduudka u dhaxeeya Griiga iyo Turkiga asagana warbixin soo gudbinayo ninka Carabiga yaqaan waa yaqaana ninkan aqoonin wixii Ilaahay naga garansiyo waan ka taataawan doonaa bal ila daawada موجود على الحدود اليونانية التركية وبالتحديد في شمال اليونان في منطقة العبور لا تركيا في منطقة كاستانيس الآن هنا إذا ننظر لوراي نرى أن هذه منطقة العبور على الجهة الأخرى تركيا حوالي 400 متر ولكن كما تلاحظون ممنوع علينا الدخول كصحفيين إلى الجهة الأخرى إذا هنا منطقة عازلة sida arkaysaan wariyaha wuxuu yiri waqtigan la joogo xaadirka ah waxaan ku sugnaa yiri Griiga xuduudka u dhaxeeya Turkiga iyo Griiga gaar ahaan mantiqada shimaaliga waqooyiga Griiga ayaan joognaa sida aad u jeedin ama aad dareemaysaan wuxuu farta ku tilmaamay meesha xiran ah arkaysaan dhankaas waa xuduudda Turkiga uu yiri waxayna noo jirtaa ugu yaraan 400 kilomitir mana nolo ogolo inaan gudubno anaga ka suxufiyiin ahaan mamnuuc ayuu inaga yahay ma gudbi karno maxaa yeelay ciidan fara badan joogo booliska joogo iyo warar kale marka walaalkayga Soomaaliyeed ama walaasheeda Soomaaliyeed doonaysa ama rabta inay ka soo gudubto hadda xuduudda Turkiga ka soo baxdo soo gudubto xuduudda Griiga inay soo gasho waxyaabo badan baa ka jira adiga aadan ogeyn
فيديو وإنه صعداء خيبتي سكالة أم فيرونك بعد يعني لفقوري دونا هدو إلهي كرال نغضو فلإلى داوضة. نهر الإفروس أيضا هناك الكثير من الشرطة لتراقب هذه المنطقة العبور. تحليلي شخصيا لما عم شوف كل هذا أنه الاتحاد الأوروبي وأيضا هنا الحكومة اليونانية واضحة جدا حتى الآن ولا تسمح بالكثير لنا كصحفيين أن نتحرك لأنها تريد أن ترسل صورة واحدة إلى العالم حسب ما أرى حتى الآن، وهي هذه الصورة بأن الحدود مقفولة وليس هناك لاجئين أو مهاجرين باستطاعتهم الدخول إلى اليونان أو للدخول إلى wuxuu yiri wariyaha hadeer waxaan joognaa dhanka ama nahril Ebros ama webiga Ebros dhankiisa waxaa ku xeeran ama ku xeendaaban ama joogo booliis military iyo wixii la mid ah sida aan hadda aniga haddii aan idin sharxo yiri aniga ka saxufi ahaan Orobo waxay diraysaa ama taxaatil Orobo waxay diraysaa yiri message ama suuro oo ah xuduudda inay xiran tahay wax qaxootaha inuu halkaas joogin ama nin muhaajir inuusan awoodin inuu xuduudda Turki ka soo gudbo oo Greek soo galo ma awoodaan awood uma laha warcad way message noocaas inay dirayaan aan aniga naftikeyga idin sharxaayo yiri qof qaxootina inuu soo gali karin sababta maxay tahay ay u soo gali karin Erdogan wuxuu go'aan ku gaaray wuxuu yiri gala yiri wadan walba xuduudkiisa inuu difaacdo xaq u leeyahay wixii ku soo socda oo ama qaxoota noqdo ama wax nooc walba noqoto inuu iska celiyo taariikh walba ku soo gal sida marka hore waxa lagu soo gali jiray dhuumasha lagu soo gali jiray haweenimo 10 saacadood inta la soo raac la soo kori jiray mar laba qeyb loo soo maraa marna badda laga soo galaa marna webigaas Ebro laga soo galaa marka garigoodna wada jasiirad way meesha bariga oo kaliya waxa webigaasna way dib badan tahay si loogu soo galo marka hore way adkeed marka videogan kale saddexaad aan fiirino muxuu leeyahay kadib asan warka waa sii wada doona warka waa socda ila daawada لأنه من حق كل شخص أن يطلب اللجوء عندما يصل إلى الأراضي الأوروبية، لكن هذا لا يعني أنه يحصل على اللجوء. وهنا المجتمع المدني ينتقد هذا الأمر ويقول أنتم حتى عم تمنعوا الأشخاص أنه يقدموا لجوء. حسب الأرقام المتوفرة حتى الآن أكثر من 5000 شخص تم إرجاعهم sababta ay xuduud u xireen ay ciidanka ay u keeneen maxay tahay qof walbo lugta soo dhigo dhulka Oroba ama Greega lugta soo dhigo wuxuu xaq u leeyahay inuu dalbada qaxootinimo macnaheeda hadduu dalbada macnaheeda ma aha ku leeyahay qaxootinimada inuu helay maxaa yeelay dad baa waxaa yiri xataa waxa idinka adiidan tihiin dadka dalbanaya qaxootinimada sida wuxuu kaloo yeeri macnaa hadda tirada la og yahay oo macquulka ah 5,000 oo ruux ayaa waxa loo celiyo yiri Turkiga loo celiyo way soo gudbi waayeen xuduud way soo gali waayeen qaar ka soo galeena dawladda Greega waxay iclaamisay ama ay sheegtay xataa istiqbaalka ama ogolaashaha ama qaabilaadda qaxootiga inay joojisay ilaa ay amar dambo ninka fogto oo tulub laho oo dhuunto sida dooli oo kale dhinac kale uga baxo xataa in la aqbali doonin qaxootinimadiisa horta mid waxa weey Greega hadaa gasho adiga waxa ku khasbantahay booliskina isku dhiibtada militariga isku dhiibtada dikala dadkooda ku dilaa dadkaas eegooda xataa cunsur way eegood diskorka waa khaylaha dad oo ciyaar ma aha waxa ku khasbantahay inaad isdhiib dhor iyada dhan waxay ka koobantahay jasiira badda ku wareegan Samos Mandalini iyo Ebros iyo Kistanias noocaas la kala dhaha waxa ku khasba Athena waxay ku jirtaa 24 saac marka binaa soo raacdo habeenkii oo dhan badda ku soo jiraato taasna waxay u baahan tahay sharci ama warqad oo ku soo sii macnaa UN-ka taas ayaa kaga soo gudbi kartaa Athena ku iman kartaa haddii aadan helin booliska isku dhiibana shacbiga ku dilaayo haddii Athena timaadana cunsuriya ku dilaayo teeda kalamaad jafta wax la dhahaa jirta la soo galo videogan kale aan ku soo khatimeena asagana ila fiiriyo videogan waa video walaalaheena ila isku roon yahay videogan ila daawada codkan waa Salmaan wariyaheena caanka Soomaaliga dhageysto
ناس أو جدًا وأيسول أبتين ودتكي جريجا هذي ماشي خصو حيرتي أنتوا ذي بدنا وحواي حالة وقصة ماتي مركا دلوقتي بدنا جبتوا مركا وحنا شيء كده دتكي ربنا wuxuu leeyahay dadkan aad arkaysaan waa dadka ay xaaladdu ku soo xumaatay ee Greega laga soo celiyay oo soo noqday xaaladda ku xumaatay dadka kala raba in ay baxaan ha ka waantoowaan carabkana wuxuu yiri xisaabta hadda mutawafirka ee waxa way 5,000 ruux ayaa hadda dib loo celiyay dalka Turkiga loogu celiyay dhedheel mataalo haddii aad ka soo gudubta xataa oo Yunaan aad soo gashid ama Greega Macedonia inaa soo marto waay Serbia inaa ka dhacdo waay ka bacdi Majar ama balaq ama maxaa la jira Majar Hungary inaa soo marto Hungary markaa marto ka bacdi inaa soo gashid waay Austria ka bacdi aad dalkan Jarmalka imaan kartaa intaasoo dariiqna ee Macedonia way xiran tahay Serbia way xiran tahay Majar ama Hungary way xiran tahay Austria ma soo gaari kartid hadda koorne ee 2015 hanga ee Austria waa militarigeeda way xuduudaadtii ay dhigtay oo dad badan lagu laayay meesha marka arinta sahal ma aha way adag tahay cid rabtay inay soo gashane koleetaba ha is ilaaliso xaaladda markay digto badoo kacsan in malay laga soo gaato way fiican tahay laakiin tan ma aha bal isdaji xaaladdu way xun tahay nin walbo hadda Turkiga ama Istanbul ama Azamir joogo waxaan leeyahay xogo salka dhigo bal u kaadi li'aano ciidanka Greegiyanka indhooda uu furiyay meel walba way joogan badda hadda soo gashidna waa idin laynaya intay doonta bajiyaan ni jiidaan ay badda gunteed inta idin geeyaan idinka soo tagayaan cid idin badbaadinaysana malaha wabigana way idinku dilayaan meeday in ku dhaafayaan malaha marka halees dajiyo iimaankiina isgeliya videogan halkan ayuu iiga yahay nabadino iyo nool kulanta haddii aad ku cusubtay channelkayga Dhanana Media fadlan subscribe ka saar oo leega dhab ku sii share garee la wadaag asxaabtaada commentiga noogu dhaafi xiira igaaga waa dhiirigelintiin nabadino iyo nool kulanta assalamu alaykum.